بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. halkan maanta waxaan rabaa inaan kusoo gudbiyo oo maxay ahayd waxaan rabaa inaan sameysto maxaa la dhahaa khalta isku walaaq ah oo aan ka sameysanayo wax lagu qabeysto oo maasha Allah jirka maarta nadiifinaysa qof kastan uu isticmaali karo nin iyo naagba maarta maasha Allah tabarakallah oo ku nadiifinaysa hadda ka hor aan isticmaali jiray runtii hadda ka hor aan duubin runtii aan maarta aan ka dareemay maasha Allah tabarakallah nadiif jirka ku nadiifinaysa si fiican marka halkan aan rabaa inaan isku sheego waxa aan isku walaaqay kan waxa waaye huruud kan waxa waaye qasil kan qasil waaye kan waxa waaye huruud hal qaado kan huruud waaye huruud kan waxa waaye maqan guduudkan maxay ahayd shumbura ma dhihi kare magaciisa had kan iga maqan guduudkan laakiin aad Soomaalidu isticmaashaa kan ya makeup waxa ka dhan ku daran wajiga la isku nadiifiyo iyo isku maxay ahayd I don't know adi kan waa qasil kan waa huruud kan waxa u maayna shumbura iyo wixii dhahay ma aqaan guduudkan qofkii yaqaan hoos ay soo qoro commentiga raali noqdo ani dadka aad maarta u isticmaal ma ihi laakiin waxaan ku hubaa inaan inta aan isticmaali jiray sanadkan hadda ma sanadkan soo dhaafay aad ama marka qaar ku sameeysan jiray kan waa saabuun aan soo xoqay saabuun ay saabuun aan isticmaali kartaa saabuun aan soo xoqay waa saabuun fruit ka samaysan waa saabuuntan hadda oo tufaax ah runtii wadanka Sweden aan joogaa oo marka gabadheeda gurigeeda aan joogaa wixii gurigeeda aan ka helay ayaan isticmaalaya runtii ilaahay ajir ka siiyo kan waxa waaye waad ka sii raadin kartaa iyadoo ka sii daqiiqsan waxa waaye corn flour ka dhahan corn flour laakiin waxa moodaa kan xoogaa yar inuu leeyahay wax yar inuu ku leeyahay wax yar laakiin corn flour ka hada isticmaali kartid maizena soo qaadatid maizena oo xalwada laga sameeyo aad u fiican tahay hal qaado kan kalena waxa waaye moyen oo medium ah oo asagana somalina kay dhahaan somalina qamax maanta loo laga sameeyo somalinada I don't know laakiin kan waa somalina oo medium ah oo laakiin iyadoo daqiiqaha ka si fiican laakiin wixii guriga yaalla u baan adiga hadda isticmaalaya I hope in ii jeedo si fiican marka waxa waaye saabuuntii marka waa wax meeqa wax waaye waa 1 waa 2 waa 3 waa 4 waa 5 waa 6 kana waa bur hal qaado ma maqashay bur marka waa 1 iyo 2 iyo 3 iyo 4 iyo 5 iyo 6 wax iyo 7 wax waa isku daray waxaan ku darayaa haduu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad waxaan ku daraa olive oil aan ku darayaa olive oil adarti qombo ku dar waxa ku dar laakiin xoogaa yar adiga olive oil aan ku daraa inta adiga aad dareemaysid ha ka badin aniga maarta hadda ka hor nadiif aan ka dareemay runtii ma ka badan adiga laba qaado camal aan ku daray hadhow gadaal aan ka fiirin doona haday maarta ay noqoto waxaan ku darayaa ay shaambada korka lagu dhaqo ay shaamba arabtid shaambada korka lagu dhaqo waxa waa shaambo dush ah ay arabtid ku dar xoogaa intii adiga aad qiyaasatid marka runtii aad aan u jeclaaday hadda ka hor marka waxaan ku darayaa wax yar oo biyo ah ya bismillah رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني فقولي الهي waxaan ka baryayaa samahad iska leh in martay to iyo soo saar khalta fiican oo martay nadiif iga dhigta marka biyaha aan ku qasay hadda runtii biyaha caadiga aniga aan ku qasin jiray awal laakiin wax yar hadda qandacaan ka dhigay ani waxyaalaha oo dhibka badan iyo makeup-ka badan iyo waxyaalahaas ma isticmaalo runtii inta kuul ma soo gato laakiin runtii aniga hadda weyn aan ahay oo martay to hadda age-kaygu maasha Allah laakiin markaan dhalinyarta ahaa xoogaa inta kuush iyo lipstick ma liga weyn jiray borsadeeda laakiin hadda mana soo gato lipstick mana soo gato inta kuul laakiin insha Allah waan bilaabi doonaa makeup iyo waxyaalahaas insha Allah haddana waxaan rabaa in maartay jirkayga inaan nadiifiyo oo maartay aan iska dhiga gabar yar oo maartay jagjag ah oo kor soo qaadmay caafimaadka qofka gabar yar ama yaraan la'aan aan qof kasi u fiican tahay ragga xataa oo macnaha markii cusburka laga bixiyo
iyo huruud iyo laga bixiyo qusulka kale rasuulka sallallahu alayhi wasallam uu ku qabaysan jiray sallallahu alayhi wasallam waa health waaye qusku waa daawo ma moogtahay aad u caafimaadkan ugu fiican yahay marka waxaan rajeynaa in loo jeedo marka ka xumaay aniga kaamirada ma aqaan sida maartay marka saana isugu walaaqan kulli wax kasta kor u soo qaad inta kaamirada iga boodi lahayd tinka u jeedin umaleynaya marka qofka dumarka markay wax walaaqato oo wax samaysato macnaha waxay kamid tahay farxadeeda waaye laakiin markii aan gurigeyga joogay alla qalib ina iska aamusa fiican alxamdulilah waxaan dareemaa farxadeeda inay ii soo noqotay Sweden markaan ku soo noqday insha Allah videoyaan ka soo duub doona Sweden hadda ma dhow wax yaraan soo duub guriga gabadheeda kor ee diganta dabaqa sideedad marka waan duub xooga ما شاء الله فيو قروح بدن الله هاي وودن ما شاء الله إلهي وحنا قبري إنه سوها نشوا تذكرنا صومال آدي لو سلوي كل أنا كواقالة لنكو هنا مرور بلكن إنه وحسوا علن وفي عنتها دعاء اللي علنوا وحكى لنكو عالم كنا ملها دقال أنسين كنا ملها كل محيه عن كقاعدنا فكرة هو في عن مركب وكو كقبلو يبيله لو قف كربه وكعجينكي بيبضن حتى ما كنت نجا أوريدي وديار maxay caagan ku shubaya hatta frinjeerka la gashan kara haduu qofka isticmaalin because waxa dhan hal mar ma isticmaali karo xooga ayaan qaadanayo waxaan la aadaa musqusha waa isku nadiifina marka isku nadiifiyo you don't need more water you see ma u baahni biyo kale hatta inaa ku dartid jilaac ku noqoto saabuunta san ku dar ay saabuun marisa fiicnaan lahayd maris laakiin ma arkin oo natural ah laga keen carbaha maartay oo fiicnaan lahayd hada haysana laakiin بركة كان يجري أيامها إن سمي شلون أنا ربي إن سمي لك يمسك توبين وكا أوليو وقدري وحدهم وقدر هدتان وكا هسي إنه قط بركة حاجة يرى محيه تكشوا منا يا لو مال فرنجير كان قلنا عايا نكشوا منا حرن فرنجير كان قلنا مركل ربي إن استعمال حاجة أنت استعمال كهر صباحي لك اسكن نظيف هرود يو حيالها كلا كبحي odaga xataa uu ku qabaysan karaa qofkii rag dhalinyaraha uu samaysan karaa Soomaali dadka aad u madoobaada rafaaday qorraxda kul way isku nadiifin karaan marka inta sarab maanta inay soo gudbiyo ujeeda si fiican u soo baxday inta sarab inay soo gudbiyo maanta xabiibayaalo shaal ii soo duceeya aan hadda maraba korkayga inaan ku fiiriyo macnaha maxaa ah hooyada qaaban gloves xiran jirtay laakiin hadda dhaafay runtii ma sameyn kartaas laakiin waxaan awoodi karaa insha Allah inaan sameeyo waxyaalaha kale oo dhan in codkayga duubo inaan marta anoo qayb qal soo fariisto laakiin waa igra la ahaanaysiin waxaan aad iyo aad u jeclaan lahaa channelkayga ila aad u soo booqataan Ilaahay dartiis maxaa yeelay channelka Hope Family Foundation waxa waaye inaan waxa rabaa dadka ku caawiyo mustaqbalka hadii Ilaahay dhaqaale fiican isiiyo wali Ilaahay hadda aniga ma helin dhaqaale kama helin channelka laakiin inuu waxa rabaa channelkayga gareeyo maadaama hooyo xooga iska xanuunsan ahaydna inaan support gareysiina aad in kaga jeclaan lahaa anigana waa in support gareeyna gabadhan arka aniga iyo wiilkan arka waa u saara waxa aan music ahayn waxa aan team channelada music iyaan ahayn runtii ani ma saara channeladaas laakiin waxyaalaha xataa dadka dhalinyarta riwaayadaha waxyaalaha macquulka waa u saara channelka marka Ilaahay khayr ha in siiyo channelkayga soo booqda subscribe iyo comment igu sameeya qofkii proveeyo oo saan isticmaalin ha ii soo sheego xusuusna waxa waaye ani qosul hindiga qosulka iyo waxyaalaha dhan dukaan halkaan ka soo gado Soomaali ah laakiin aan hub qofka inuu haysto qosul hindi qosul macnaha qosul caadi ah qosul kan lagu qabaysan hadda aan walaaqay iyo huruud iyo wax kasta organic wax fiican u jirkiisu asiga waxa jirkaaga ku dhaqaysiina ogtahay laakiin aan dukaamada Soomaaliya ka soo gaday hub inuu fiican yahay marka insha Allah bi'inni la waan sii raadin doonaa kuwa original oo organic ah marka saas aan ku salaamaya aadan u mahadsantihiin maxay ahayto commenting ka soo bixiya channelkaygana soo booqda aadan mahadsantii marka waan inii soo sheegi doonaa maxaan dareemay laakiin ana hadda ka hor isticmaali jiray runtii waa aad iyo aad u fiican tahay nadiif noqona jirkaaga dhan maxay ahayd korkaaga dhan ku dhaqaysaa aniga dadkayga qololka waxaan ka bartay maartay waxaan ka bartay qololkii la dhageysan jiray walaal gabar aan ka maqlay sida